Hidde-sidaha cusub cudurka coronavirus ee isdhallaan rogay Omicron oo ka dillaacay caalamka isagoo laba qarax ah, kaas oo laga yaabo noocii ugu faafidda badnaa inuu noqdo B.1.529 Omicron. Noocan cusub waxaa laga arkay markii ugu horeysay dalka Koonfur Afrika. Ilaa hadda, wadamo badan ayaa joojiyay socdaalkii safar ee kaga imaanayay dalalka Koonfurta Afrika oo uu ku jiro Koonfur Afrika laftirkiisa. Wadamo badan oo adduunka ah ayuu ku sii fidayaa iyadoo walwal iyo walaac hor leh ku bilaabay bahda caafimaadka gaar ahaan iyo guud ahaan adduunka oo idil, weliba iyadoo la daalaa dhacsanaa wadamada qaybtood noocyadii horey u jiray. Waana arrin taxadarkeeda u baahan. Ururka Caafimaadka Adduunka WHO ayaa ku tilmaamay wax laga naxo oo laga argagaxo noocan cusub ee koronaha isdhallaan rogay P.1.529. Waxaa laga yaabaa xayiraado cusub in lagu soo rogo wadamada qaybtood, isku socodkii la joojiyo sidii sanadkii 2020, iyadoo walaacan cusub oo laga muujinayo xanuunkanna uu aad u soo siyaadayo maalmihii ugu dambeysay. Ku dhowaad 2 sano ayaa laga joogaa oo uu bilowday xanuunka COVID-19, isagoo galaaftay oo nafta dhaafsiiyay 5 milyan oo qof oo ku kala nool caalamka oo idil, wuxuuna ku dhacay in ku dhow 300 milyan oo qof oo adduunka oo idil ah. Waxaa la isweydiinayaa muxuu kaga duwan yahay nooca cusub ee koronaha noocyadii horey u jiray. Coronavirus waa virus waana lagu yaqaanaa inuu isbedbeddelo oo marba weji cusub iyo dardar cusub la soo baxo. Ilaa intii uu soo baxay corona, wuxuu isku beddelay intaas oo jeer. Ilaa 30 jeer ayaa la xaqiijiyay inuu isku beddelay marba nooc noqonayo oo weji cusub la soo baxaya. Balse noocan cusub faafistiisa ayaa ka badan sidii hore. Fayraska inta lagu mashquulsan yahay in wax laga barto si difaac caadi ah jirka uga samaysto ama talaal loo soo saaro, ayuu isna ku mashquulsan yahay ka hortagga arrintaas sidii u baran lahaa waxaas lagu sameynayo ama difaaca jirka, dabadeedna uu u keensado borotiinno cusub, isbeddel cusub oo ka adkaan kara habdifaaca jirka iyo talaalka jiray oo la sameeyay. Dhallaan rogan cusub ee soo shaac baxay ayaa baqdin waxaa looga qabaa inuu talaalkii hore u jiray uusan waxba ka tarayn, waxayna u baahan tahay in laga taxadaro, halisteedana way leedahay.